وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابت شرفت لي تمام ووضع سلامينا عاوي وحا وجمعة ليلة مباركة وبركيسان وكم إذا همينada u caqidan salawaadka xabiibka calayhi salaatu wasalaam majliskan iyo xaruntan mar walba lagu kulmo caaway haddana waxa ay la sii dheer tahay inuu nagu soo booqday inoo yimid caaway na soo ziyaartay calam ka mid ah aclaamta ummadda Soomaaliyeed sheekheena weynaayo Sheekh Cabdinuur Sheekh Cabdullaahi al-Makiina aku faraxsanahay runtii liqaha sheekha la kulankiisa inuu noogu yimid majliska xaruntan Baytul Ashaacira insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa haddana sheekheena Sheekh Cabdinuur Sheekh Cabdullaahi aan wada dhageysano insha Allah taala kelimadiisa barakallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إن شاء الله كلمة كوبان نقول دونتا كلمة إذا هدي إلهي رادو إلهي بأن نكون حمدنا ونما هدنقينا نعموين كي صارنا أن لسوكو بكرين ويكمل تهاي inaan soo xaadirnay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo xaadiriyay oo nawaafajiyay inaan ka soo qayb galno majliskan barakaysan oo kamida min majalisi as-salatu was-salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sida haddaba uu noo sheegay sheekha saaxiibul majliska oo mudarriska ka meeshatan majliska kan Sheekh Ahmed Ahlullahi مجلس وحوي لو عقيدي في كل جمعة وفي كل أسبوع أمدح رسولك صلى الله عليه وسلم مركا أيضا يقدر تهي إنه يهي مجلس أو تعليمي أو تربوي لغو برنايا قرآن كريم لغو برنايا أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام لغو برنايا وحي لغا استنباضي كتابك إلهي يا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام لغو تربيين طلبة العلم ما شاء الله تعالى وإكمل تهي تربية داسي عقد هذا المجلس مجلس كان العقيدي وهو مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهانتي منعها مجالسا العقيدة لسوء إيمانيو oo la fariisanayo saliga nabiga lagu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam iyo amdaaxda lagu akhrinayo waa hadda bilowday oo mar dhow la soo aas-aasay ma aha waa majaalis maaragtay jirtay salaf هذه الأمة ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam salafkeedii jiri jireen iyo khalafkeediiba majaalis maaragtay jiri jiray waaye marka kulli waa qaadaya nabigeena suubanna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam dadka ahlu jannada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa mutaystay lagu abaalmariyay daarul jazaa
daarta abaalmarka la geeyey saacadihii adduunka soo maray waxay ka shallaayaan saacaddii soo martay ayagoon ilaahay xusaynin nabigana ku salinaynin calayhi salaatu wasalaam saacaddaas iyada ahay ka shallaynayaan ayagoo ahlu nicmo ah ayagoo ilaahay ka raadi noqday ayagoo ilaahay uu geliyey wayudkhiluhum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha ulaa'ika xisbullah alaa ina xisba allahi hum almuflixuun ilaahay wuxuu sheegay dad ahlu khayr inay jiraan oo ilaahay ka soo taariikhayay buu wuxuu yiri maaragtay hadii alla ku roon yahay wuxuu gelinayaa jannaadku ilaahay gelinayaa ilaahay baa maaragtay ka raadi noqday intay daar dunyada joogeen oo adduunyada joogeen waxay mutaysteen oo gaareen maqaam la gaaro maqaamkii ugu sareeyay darajo la fuulo darajadii ugu sareysay alaa wahya darajatu ridha wa ridwan wa ilaahi subhanahu wa ta'ala inay raali ahaanshihiisa heleen innagana kuwa raali ahaanshaha ilaahay barakadooda allah nooga raali noqdo wax la dalbo wax aad u weyn badan waa ما شاء الله markii wuxuu noo sheegay nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam ahlu jannada markay jannada galaan ilaahay baa la hadli doona wuxuu oran doonaa uhillu calaykum ridwaani fala askhatu calaykum abada waxa inaan ku dejinayaa ahlu jannadiyow maanta waxaan inaan ku dejinayaa aniga raali ahaanshahayga yaan idin siinayaa raali ahaanshahayga idin huwinayaa oo dushiina aan yeelayaa carad dambe ma arkaysaan markaas waxay halmaamayaan baa li ahlu jannada wixii naciim ahaa iyo wixii barwaaqo ahaa iyo wixii la siiyey oo dhan waxa ka weyn ridaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo kaamil ah marka inta ilaahay ka raadi noqdo allah nagu daro maqsad weyn waay ala ridaa allah huwa maqsad al-aarifin wa munyatu as-salikin wa malja'u al-aabidin dadkii ilaahay caabuday oo saalikiinta ahaa oo ahlu dariiqada ahaa oo ahlu fadliga ahaa oo zaahidiinta ahaa waxa ay higsanayaan iyo maqsadka ay u socdaan wuxuu ahaa ilaahay raali ahaanshiisu ahaa in ilaahay raali ahaanshihiisa ay gaaraan maraatibta ugu sarreysa inay gaaraan ma sha Allah sheekhana muxuu yiri sayidi sheekh Abdul Qaadir al-Jilaani muxuu yiri markuu soo tiriyay uu yiri mayaadiin ar-ridha hatta wuhibtu makanatan la tuhabu sheekh Abdul Aziz sheekh Abdul Ghani an-Nabulusi ya takhmiisanaya marka waa kan yiri ee sheegay qasiidada bilowgeeda waa kan yiri janabtu ma ahwa wa dibtu dawiyatan fanaziltu manzilatan hunaka aliyatan usawad billahi waxa aan gaaray ma ziltu arta'u fi mayadin ar-ridha kama aanan zuulin inaan daaqayo maqaamaadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ridihiisa kuwa ugu sareeya banaankooda mayadiin waxa la yiraahdaa meesha banaano farduhu ay ku tartamaan baa la yiraahdaa mayadiinul furus ama fursaan ragga fardoolayda ah meesha ay ku tartamaan oo lagu dhaqtamo oo la isku reebo lagu kala badiyo ya mayadiin la yiraahdaa meeshaas wuxuu yiri saalikiinta iyo caarifiinta iyo awliyada ilaahay iyo saalixiinta ay ku tartamayaan iyo muqarrabiinta meeshaas inaan anugu daaqayo oo ku raaxaysanayo oo ku dhex jiro kama aanan zuulin hatta wuhibtu makanatan la tuhabu darajo weyn oo aan la hibayn baa ilaahay ii hibeeyo yiri ma la inkiri karo in allah ala kulli shay'in qadir fa'al lima yurid ilaahay adoonkiisa wuxuu rabo siinaya makaano weyn هذا هو الأوجي هذا غوث الأعظم سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أبو صالح رحمة الله تعالى عليه ونفعنا الله بعلومه وأسراره وبركاته وحى إلهي سيئي لا يخفى على أحد بني آدم كما قرصونا شهدت برتبته جميع الأكابر رجي أكابر تأها أردن أوليد إلهي يا رتبتي سكمر غاتك عاي marka sheekhanaga muxuu sheegay mujaahadadii farabadnayd janabtu ma ahwa
waxaan ka fogaado oo iska tuuray wax alla wixii aan jeclahay buu sayid Sheekh Abdul Jilaan يعني شيخ عبد الغني النابلسي وحكو هذا على لسان الحضرة الغوثية سيدي شيخ عبد الغني لسان كيسو هذا جانبت ما أهوى وح الله وحي أن جعل هواء نفسي ودم بان كتجي بالله أنا هواء نفسي وأنا راح أرتوي هذا يا هواء النفسي يا ماشي طنّا الاجتهاد أن جوجنو نفتو واحد جعشها تعليم الآن نفتو واحد جعشها عبادة الآن نفتو واحد جعشها ما لا يعني نفتو واحد جعشها مأكولات ملبوسات نفتو واحد جعشها الزينة يوم ما أركت هدية الكور شهواتك وحصل أسكتوري بالله جانبت ما أهوى مركي هود قفك وكفوا هذا والزاهد والنقضة وإلهي غير كيس وكزه ديو هودي سأو خلافه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وراعه وكضيضه قدوذي وينيد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يددك كدم بيو أهل الصلاح أها محل غيرها انت أمية مايا وضبت دوية نيد إذنا وان هاجي بير waxyaabaha marka cajabta badan oo wax lagu gaaro waxa kamid ah waxa la yiraahdo qalbiga wanaagsan